Soomaalida waa Cali Cabdullaahi Cosoble oo soo noqday madaxweynaha Hirshabelle maxaan leeyahay wuxuu ahaa mas'uulkii ugu doqonsanaa ee soo maray yani hoggaanka Soomaalida madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble wuxuu ahaa shakhsiga kaliya ee cod ka duubay gudoomiyihiisa baarlamaanka taas oo ku tusinaysa shakhsiyad xumada ku jirta anigu madaxda Soomaalida kamid ma ihi 15 sano miidiyan ku jira madaxda Soomaalida ee taqaanaan qof aan wada hadlin ma jirto waligay qof ama shacab ha noqdo ama madax ha noqdo cod kama qaban sababtoo ah waxa weeye waa khiyaano way diiniyan waa khiyaano sharaf ahaan ceeb way qofka kula hadlaya teleefankaaga soo wacay ama adigu aad wacday ka qabtay waxa weeye waxa uu ku sheegayo waa private qofkaas hadduu rabo waxa uu adiga ku sheegayo inuu public ka dhigo isaga shir jiraad qaban lahaa marka khiyaanadii ugu weyneed ninkii sameeyay weeyaan waa qayru mas'uul hadduu jiro qofka ugu qayru mas'uulsan siyaasiyiinta Soomaalida taas horta waxa uu tagaa in xusuusiyo hadda Cali Cabdullaahi Cosoble aniga dagaal laga dhaxay waayahay maanta waxaan rabaa insha Allah taala inaan ka hadlo nidaamka hubka dhigista Cali saasan u soo qaatay hawshan xasana wata oo gadaal ka riixaya ujeedo weyn ayuuna ka leeyahay oo xogteeda aynu helay insha Allah taala waxaan isdul taageynaa hubka dhigista adika waxaan ka codsan muuqaalka like saataan la wadaagtaan saaxiibadii waayahay Xasan Maxamuud wuxuu soo rogay nidaam la yiraahdo dadka hubka ha dhigeen horta hubka ummadda marka laga dhigayo waxa wanaagsan in qaab macnawi looga dhigo ee qaab xizbi in looga dhigo wax ku soo kordha ma jiraan walow tan xasan uu dan gaar ka leeyahay haddii aan sooyaalka taariikhda Soomaalida dib u raaco ashaamudkii Cali Mahdi waxay lahaayeen hubka waynu dhigaynaa oo dadkan ka dhigaynaa waxba kama suurtagelin waxa ku xigtay dawladda Cabdiqaasim hubka dhigistaas way sheegaysaa Cali Qaliif wuxuu dhihi jiray waa in dadka hubka laga qaadaa wax ka soo kordhay ma jiro dawladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed baa timid Muuse Suudi baa wuxuu yiraahdaa dhammaan wixii hub aan lahaa dawladdii Cabdullaahi Yuusuf baan ku wareejiyay $2 milyan buu noqday qiimuhu mirinaayo ayaana la iigu bedelay aan su'aal idin weydiiyay Muuse maanta masacaboolay baa mase wuxuu kamid yahay dadka ugu hubka badan magaalada Muqdisho dabca uu hubaysay maxay tahay sababtu waxa weeye hubka marka hore dadku waxay u iibsadaan lafahooda inay ku difaacdaan haddii siyaasad stable aysan jirin amni guudna uusan jirin baahida hubka weligeed way taagnaanaysaa marka aan leeyahay hubka dadka in looga dhigo qaab macnawiya ayaa dhaanta in qaab xizbiya looga dhigo macnawigu waxa weeye baahida hubka loo qabo meesha in laga saaro tusaale ahaan dalka Mareykanka waxa la sheegaa shacabka ugu hubka badan adduunka inay ku nool yihiin haddana dalkii waa ammaan oo xabadu kama dhacayso waxyaabo yar oo dal 400 milyan ku dhawaad ay ku nool yihiin waxa weeye waxba ka dhacaya waxyaabo yar meel iskool la xabaday waxa soo aragnaa laakiin dadku sida ay hubka u haystaan wadanku sida amniga u yahay wax isu dhow ma aha maxay tahay sababtu waxa weeye siyaasadii ayaa deganaan siyaasadeed oo rasmi ah ka jirta waxa weeye marka qofku qoriga uu haystaa laakiin uma baahna baahidii uu isticmaal lahaa ayaa meesha laga saaray amnigii guudna dawladda sugta waxa weeye marka taas waa dadkii oo hubka looga dhigay qaab macnawi ah laakiin haddii baahidii hubku taagan tahay oo siyaasadii lagu dulminayo oo waxa weeye qabiil ahaan lagu dulminayo waxa weeye qoriga haddii maanta laga qaado baraad soo gadan suuqa tagi waad soo iibsan balfiirso maxay tari marka hubka in qofka laga qaado haddana uu suuqa tagay soo iibsan xasan faa'iido ugu jirta sida inuu maqalay Soomaaliya cuna qabataynta hubku intay saarayd ayuu hubku soo gali jiray yaanu ka soo gali jiray Itoobiya laga keeni jiray maxaakiimtii maxuu ahaaytay waxaad ogtiin in sidoo kale ay hub ururiyeen aad u tiro badan oo ay ka qaadeen Shariif Axmed magaalada Muqdisho wuxuu hogaamiyay kooxda jooga hubka uu ka qaadana dib shacabka gacantiisa u galaa sababtoo ah al-shabaab maxay tahay waa shacab hubkii qabiilada ka qaaday iyo hogaamiyay kooxdadii wiilal yar ku wareejiyay iyaga doorka kula jira waayahay xasan marka ujeedada uu ka leeyahay hubka dhigistaan maxay tahay
ujeedadu waxa weeye waa lacag samayn arrimihii dhulka ayaa soo gabagaboobay. xasan marka cunaqabataynta laga qaaday dalka cunaqabatayntii dalka laga qaaday si khaldan buu u adeegsaday isagoo shaatigii dowladda wata. waxaan ognahay in shirkado xasan sheekh maxamuud leeyahay hadda ay soo dejiyaan hubka. marka waa nidaamkii Mareykanka ee la oran jiray Mareykanka shirkadihiisa waaweyn ee hubka sameeya markay shiidaan oo xoogaa jeebxuma ku dhacdo dagaal buu abuuraa. Mareykanku waxa weeye inta badan dagaalada uu galo waa dagaalo dhaqaale weeyaan. laba dal buu isku diray adduunka ku taala. haddii laba dal isku diro uu waayana isagaa weerar qaada sida Ciraaq weerarka lagu qaaday kii Afghanistan. waxa weeye suuq baa lagu furay. shirkadaha ayaa suuq loo sameeyay. waxa weeye marka xasan shirkado uu isagu leeyahay ayaa hubka soo dejiyay. maadaama shirkadii hubka soo dejinay uu isagu leeyahay marka waa in baahidii hubka xasan uu abuuro. tusaale ahaan laba dhashiike maanta siyaasiga laga qaado dabcan baahidii labadaas dhashiike uu iibsaday way haysaa isla markii suuqu ka doonaya. suuqa hubka yaa ku haya shirkadda xasan sheekh maxamuud ku haysa. waxaa suurtagal ah kii laga qaaday siyaasigaas laftirkiisa in siyaasigu dib u soo iibsado oo laga soo iibiyo ama store mid ku jira oo shirkadda xasan sheekh leedahay laga iibiyo. marka waa new marketing oo xasan uu u sameynayo shirkadihiisa. bal fiirso waa ganacsigii dhulka ganacsi kale oo lagu bedelayo. waxaan leeyahay marka qof kasta oo Soomaaliya ee hubaysan xasan sheekh maxamuud warka uu wado ee hubka dhigista ah yoo dhageysan qorigaaga hayso kulli ka maarumaysto biri ayaad suuqa ka doonan doontaa. dalkan siyaasadiisa dil la dejiyo oo waxa weeye yani ay stable noqoto dadku hubka iyagoo guryaha ku haysta aysan la soo bixin. halkaas markii la gaaro ayaan hubka la xakameyn doonaa. xasan waraysi uu bixiyay oo aan daawaday runtii xanuun weyn baa ka muuqday. xanuun aad u weyn baa ka muuqday. siyaasiyiintii hadla qaarkood buu soo qaatay. cabdiraxmaan cabdishakuur buu daf soo yiri. cabdiraxmaan odayaal buu caayay. hadda kor waa tii la weeraray gacanaa laga jabiyey 6 wiilaa la dilay weli xataa meydkoodii meel lagu aasay lama yaqaan. hawshaas in saambuus laga adimay ay tahay xasan wuu fahmi waayey. war xasanow 6 wiile aad sheegtay in laga dilay cabdiraxmaan cabdishakuur 6 la ilma adeer adigu horseed soo kuma dilin adiga oo xoolahoodii ka dhacaya. hadda ogow wiilasha cabdiraxmaan cabdishakuur laga dilay dhul lagama dhicin. arrimo siyaasadeed ku dhinteen Allah u naxariisto waana laga xaalay oo ehelkoodii diya laga siiyay sida aynu ogna. laakiin adigu horseed 6 la ilma adeer ma ku dish adigoo dhulka ka dhacay. daynile 36 ma ku dish adigoo doonaya dhulkooda inaad boobto. kuwaas miyaysan dadahay. midda kale waxaad soo qaadatay lafahoodii ilaa hadda lama hayo. lafahooda miyaad iibsan lahayd? generaaladii siyaasiyiintii maxay fanaaniintii iyo dadkii qiimaha lahaa ee iskool buluusiya ku aasnaa lafahoodii xageedgiisa xasan. haddii lafaha bini aadamku qiimo ku leeyihiin kuwaas xageedgiisa sawti cali wajiis ku maxay fadwooday ee lafiya atir dadka la baxa kuwii cid la waayana aad qobtood banaanka ku daadisan. waxa weeye xasanow waad rakaab xun tahay waad la taliyaal xun tahay waadna xishood daran tahay ee ummadda hala soo hor fadhiisan waxyaabaha raqiista ah ee sidaas u yaala. barnaamijka intaas ku soo gabagabeynaya. hada wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.